يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان كريم، رمضان مبارك. دمان waxaan idin wada rajeynayaa waxaan soo galnay 10kii maalin ee u dambeysay bisha barakeysan ee Ramadan. Dhamaan Allah subhanahu wa ta'ala inuu naga dhigo kuwa ka faa'iideysta 10ka hartay ee ugu fadliga badan Ramadaanka oo dhan 10ka leyl. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yiri inuu na kulansiyo habeenka oo Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. barnaamijkan waxaan ugu talagalay inaynu ka wada faa'iideysano bisha Ramadaan intaynu ku jirno inaynu isla daraasayno suurad kamida suwarka Qur'aanka Kariimka ah aynu u daraasayno si mawduuci ah ma fasirayno balse si mawduuci ah aynu u daraasaynayna suuradaasna waxay ka hadashay waxa la yiraahdo wada noolaanshiyaha mujtamaca ah waxyaabo u asaasi ah oo akhlaaq ah si ay u horumaraan waxaanu ka hadlaynaa suurada aynu ka hadlayno waa suuratul xujuraat waxa ku jirta suurada aayada culimadu yiraahdeen waxa la yiraahdaa aayatut tacaaruf taas oo keensanaysa aayatut tacaaruf suuradaas inaynu ka fiirino wax aayatut tacaaruf maadaama wada noolaanshiyaha ay ka hadashay iyo Allah subhanahu wa ta'ala qaabka uu abuuray bila aadanka uu u sameeyay iyo sida uu isugu xiray wax kale oo looga faa'iideysan karo wada noolaanshiyaha ma jirta suuradu aad bay uga hadashay Allah subhanahu wa ta'ala quraanka markuu uu soo dajiyay waxa uu u soo diray insaanka waxa uu u soo dhiibay nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam oo ahaa rahmad u yimid bila aadanka wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin rahmadaas oo Allah subhanahu wa ta'ala oo adduunka u soo diray sidoo kale Muhammad alayhi salatu wasalaam waxa uu soo raaciyay Allah wuxuu soo raaciyay kitaab uu la yaatihi al baadil min bayni yadayhi wala min khalfihi sidoo kale Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkaas wax waliba oo bashariyada islaaxin karaya ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo dhiibay oo uu yiri wanazalna alayka alkitaba tibyana likulli shay nabiyullah alayhi salatu wasalaam isaga oo ka hadlaya mawduucaas waxa uu yiri kitaabkiina waxa ku jira naba'u ما كان قبلكم وحنا كجير ما كان بعدكم ما كان قبلكم سيدو كل وحا كجير وخبر ما بعدكم وحنا سيدو كجير وحكم ما بينكم لذلك إن نكفى إذا يسنو أخلاقيات كوضع نولانشيها سورة الحجرات مهم بينو تاي خاصة هدي أي نهني دالك صوماليات دالك صوماليات آد بين غرفة حق وضع نولانشيها سي حلقات بندين أيانو وقهد لينا إنت لو جير 10 كان مالموت suuradaasi akhlaaqiyadka wada noolaanshiyaha ay ka hadashay Allah subhanahu wa ta'ala aayatu tacaaruf waxa uu ku yiri ya ayuha naasu inna khalaqnaakum min dhakarin wa untha waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila litacaarafu culimadu waxay yiraahdaan Allah subhanahu wa ta'ala insaanka waxa uu abuuri karayay sida xayawaanka kale isagoo aan lahayn aabe isagoo aan lahayn hooyo isagoo aan lahayn qaraabo isagoo aan lahayn qabaa'il isagoo aan lahayn wadan xayawaan iska nool un kaliya adduunkan ku nool balse Allah subhanahu wa ta'ala taas ma yeelin waxa uu yeelay sida uu uga hadlay aayadan oo dadka waxa la abuuray iyagoo qabaa'il iyagoo leh qaraabo iyagoo leh wax waliba iyagoo ka kooban iyagoo leh wadan ay ka dhasheen lidalika marka sidaas ay tahay waxa imanaya Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu sidoo kale amray in adduunka la camiro khalifatullah fil ardi ila noqdo marka wax kasta oo ku iman kara wada noolaanshiyahaas marka hadii qaraabo leeyahay hadii qabiil leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala suuratul xujuraat ayuu wuxuu uga hadlay mabaadi oo asal ah in ay ummaddu wada noolaanshiyaheedu uu kobco xalqadan mawduuca aynu uga hadlayno wada noolaanshiyaheena noo saamixi karaya inuu kobco waxa weeyaan waxa loo yaqaano al-ishaa'a ama in dadka ay khabar ay isaga faafto المعلومة الخاطئة معناها إنه معلومات كنا كل اسمه التثبت بالمعلومة واحد لو يقان أي معلومة أو نوتي ماذا إنه معلومات إسكهو بينه وحي نص هرسيدي كريسا إنه نقنو بلشو كبعضا دقاليا كبعضا سياسيا كبعضا اجتماعيا كبعضا عافمادهان كبعضا خزعبلاتكم فربضنا وحي رادان bulshada ay ku farabadan tahay khuraafaadka iyo macluumaadka aan saxda ahayn waxa loo yaqaan asaadiirta waxa loo yaqaan macluumaad iska sheekooyin ah bulshadaas waxay noqotaa bulsho ummadaha kale ka dambaysa wax farabadan ka dambaysa lidalika
waad arkaysaa marka aad hadda fiiriso mujtamacaadka adduunka maanta ku nool mujtamacaadka madana macluumaadkooda ku dhisa ay adduunyada ku saabsan ku dhisa wax khabar inay tix raacaan oo kale ku dhisa bulshooyin kale way ka horumarsan yihiin bulshooyinka kale isaga nool asaadir isaga nool iyo khuraafaadna bulshooyinka kale way ka dambeeyaan oo taasi waa wax cad annaguna haddii aynu Soomaalinahay khuraafaad xagga la yiraahdo xagga diinta aad baynu uga horumarsanay laakiinse macluumaadka kale waxaanu isaga dhisnaa khuraafaad baanu isaga dhisnaa lidalika adduunka meeshan uga jirno waynu dareemi karaynaa التثبت في المعلومة آيات التثبت كهذا الله سبحانه وتعالى وحي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حمزة يا كساء يقوى آخرين فتثبتوا بس لكن التبين والتثبت ومعنى واحد ومعلومة إن له بصدق مركب وحين شيءنا مبادئ تصالح مبادئ علاج معلومات إن له بصدق كيف نتعامل وكيف نعالج أي هل كان أجهض لنا بالأول حاجة أي معلومة نوتي مع دولة الواحد الإسكندونية التثبت إن له بصدق سيدا أي أخبصنا لبعض طريق متكود بين أخو بين كرينا لبعض طريق متكود أي أخو بين كرينا أولا لأهل الاختصاص إلى عليا أي معلومة نوتي مع لأهل الاختصاص إن نعلنه مثلا معلومة سياسية هذه نوتي مع ضدك السياسة على إن نعلنه معلومات عافمات هذه ضدك عافمات يقين أن نعلنه معلومات دين تكسها بسن ذاتك علماء أن نعلنه وهكذا سيدا وكلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر طريقة لبعض أنه كهب سنكرين وحيتا إنه فيرنا التفكر في محتوى الإشاعة إنه فيرنا ما دام هذه بقى أي نوت ما معلومة أما إشاعة أما أي نوت ما إنه إسكفيرنا وحيك كوابنتا إنه تفكيك وسمينا أو إنه لقت أنت إنه كم قلنا أفكار إنه كأرنا بلس إنه مسكح ذا كهينا الله سبحانه وتعالى وكأرنا يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس في قلوبكم لذلك إنه التفكر في محتوى الإشاعة فيرنا تسوى قضب كسب سنة التثبت أو إن سيدي إنه ولا تعامل لهين إشاعات سيدي أنو علاج لهن بالأو كوحن التثبت إن قضب كلابات إنه كو إشاع إنه كو علاجين كرنو أما أنو ولا تعامل كرنو معلومات كخاضقة أما إشاعات وحاول ينقفك إشاعة فافينية إن أفهموا بمجرد وإنتو خبر مقلق وسن إسكهوبين وإسكفافية إنه فاسق نقنية بمجرد إنتو خبر مقلق وإسكفافية لماذا إن الله سبحانه وتعالى إذا جاء معناها فاسقين تخبرك إذيك إسكهوب سدالير معناها قفك خفست وحي كسو قليا بمجرد وكهض له خبر أوسن هوبسن لماذا وكسو قليا صوبته واحد هاي وقضب كان صدحات أو إنه كحلين أما أنا ولا تعاملين قفك أنتو أوسن خبر فافي إنه عواقبتك فكرة عواقبتك كذا لنا يسا أو أمتنا دومين كريسا باوحي سبب يسا قفك إنه فاسق النقطة مثلا قف معلومة خلدان كهض لي معلومة عف ما هاي قف باو الدواء عنيا وحلاقيها بقف كاس إنه دواء سكول أنتو وحلاقيها qof maanta inuu war khaldan u faafiyo ama siyaasad ku saabsan oo kale waxa laga yaabaa in dad si khaldan u fahmaan oo meesha siyaasad xuma ka dhalto waxa laga yaabaa inuu qofi macluumaad khaldan dad ka faafiyo asalkooda uu ka faafiyo waxa laga yaabaa in asalkooda lagu inkiro marka ay macluumatin kanat inaynu التفكر في عواقبها إنه كفكرنا هل كوا صدح قضب سيدا كله صدح قضب وكله باجرت تعامل كلا لا تعامل إشاعات كأم خبر كأن خلدن والله سبحانه وتعالى حادثة الإفك عائشة مركي اللي بين أبورت واحد من أكبر العضي حادثة أو إفك أو بين أبور أما إشاعات عضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الله سبحانه وتعالى وحى كوشة تجي سورة النور في أوائل كذا وحى وجهد لحادثة يقاب كأي هاي إن الله تعامله يصير أي تهاي حادثة كلا أما إشاعات لما تد إن الله تعامله والله سبحانه وتعالى ما شخص وجهد لي أولا إن حسن ظن أي نسمينا مثلا خبر دو ما تقف نوجي ما دو حسن ظن إن الله تعامل الله سبحانه وتعالى وحوليه ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هذا ومد قبض كلابات والغرب إن الله تعامل وحي تهاي qofku wax walba inuusan ku hadlin waxa uu maanta haduu wax u yimaado inuusan isaga hadlin والنبي عليه الصلاة والسلام وكأرنا معنا كفى بالمرء كذبا قف وح أقفل قفكو إنه بين وسكا بين وح أقفل إنه وح مغلق وإسكشة أي بين أقفل لذلك قفك وح والبقى مغلق إنه سنكو هذا أن سيدا سلم بدن الله سبحانه وتعالى وكأرنا في سورة النور ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا أن قضب كسوى قضب كأن شنات قضب ككلاء أو سورة النور أي كهذا شيء أنه كل علاجين كرينه وحاويا هديبا إشاعة نوتيماد إنه الدليل طلبنا محا الدليل عافمات هذه النقطة هذه السياسة نقطة هذه النقطة إن دين هذه النقطة ما تدوقف وحنا كان أي معلومة هذول كان إنه كذا لمنا دليل لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء وأجل الله سبحانه وتعالى أرنا معناها أمد دليل دل بيس إنه نقولنا لماذا يعني للتحقق للمصلحة العامة والخاصة يا أيضا إنه فرقة تنازع إنه دعاء إنه
ka tagno bay danteena u tahay suurat alxujuraat aayatu tacaaruf ayaa ku jirta ayaynu soo niri sidoo kale waxaynu uga faa'iidaysanaynaa waxa la yidhahdo akhlaaqiyaat atacaaruf bayna almujtamac wada noolaashiyaha akhlaaqiyaadka u asalka ah ay suurat alxujuraat sheegtay baynu halkan ka faa'iidaysanay maanta macluumada koobaad aynu qaadanay waxay tahay ama akhlaaqda koobaad aynu qaadanay waxay tahay waxa loo yaqaano almacluuma inaynu ku samayno macluumo walba inaynu ku samayno tathabut macluumo walba inaynu ishaacaadka dad ishaacaadka ka fog inaynu khuraafaadka ka fog inaynu noqono waxaan rajaynayaa inaad xalqada mujmalkeeda guud aad ka faa'iidaysateen aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh